wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland injineer Xuseen Cabdi Ducaale ayaa maanta ku dhawaaqay in 6 degmo oo kamid ah degmooyinka Soomaaliland laga hirgelin doono mashaariicda tamarta cusboonata. mashaariicda tamarta cusboonata oo ah mid tamarta cadceedda lagaga dhalinayo koronto jaban oo maalgelinta ugu badan ay bixinayso dawladda Ingiriisku ayaa ku kacaya adduun dhan 4 milyan iyo 400 oo kun oo dollar. waxaana u tartamay 23 shirkadood kamid ah shirkadaha korontada bixiya ee Soomaaliland, taasi oo 6 kamid ah ku guuleysteen kuwaasi oo maanta loo saxeexay heshiiska maalgelinta. waxaana laga hirgelin doonaa degmooyinka Baran, Sheekh, Burco, Buuhoodle, Gabiley iyo Boorame. mashaariicda tamarta cusboonata oo ah tamarta cadceedda lagaga dhalinayo koronto jaban ayaa ah mid wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo dawladda Ingiriisku ay ka soo wada shaqeynayeen muddo 2 sanadooda. waxaana mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo hay'adda dawladda Ingiriiska u qaabilsan horumarinta ee UKAID oo kharashka soo marisay hay'adda DFID iyo mas'uuliyiinta 6 shirkadood ay maanta si wada jira ugu dhawaaqeen in mashaariicdaasi si rasmi ah looga hirgelin doono degmooyinkaasi. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland injineer Xuseen Cabdi Ducaale oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi hawshan maanta aynu halkan ka shaacinayna waxa weeye waxay ka mid tahay horumarka dalka ka socda dawladdan uu madaxweyne Siilaanyo ka madax ka yahay ka socotay muddadii 6 sanadood ayna soo dhaaftay. arrinta maanta halkan ka hadlaynana waxa weeye wax weyn ka qabanaysaa in hoos ay u soo dhacdo qiimaha macaamiisha wax ku mootay ay balleerka ku iibsan doonto macaamiil badana insha Allah ay gaari doonto. mashruucan waxa la yiraahdaa Energy Security and Resource and Efficiency in Somalia ama SRES for short ayaa la yiraahdaa. wasaaraddu la shaqeeya halkan bay xafiis ku leeyihiin muddada aan soo sheegana way nala shaqeynayeen 2 sanadood ayaa muqnaysa moogtay laga maraya maalintii ugu horeysay aanu shir la qabanay saraakiisha DFID ka timi ee aanu kula kulanay magaalada Hargeysa waanu arinta fikirka la soo qaadnay inay noo fuliyaan muxuu ahaayay noo maalgeliyaan mashruuca caynkaas sidii loo dhiirigeliyo isticmaalka tamarta cusboonata. waxa ka soo haray 6 company ayaa ka soo haray 6da company markaa ku guuleystay in maalgashigan ay noo soo gudbisay oo siisay dawladda Ingiriisku in maalinkan maanta lagu fuliyo mashruucaas. 6da company markaa ku guuleystay mashruucaas kontraktyadoodina waxa la saxay wiiga ma la saxay maanta waxaan u shaacinayna waxa weeye inaan u sheegno kontraktyadan la saxay oo hawshaas la gelayo. 6da company markaa waxa weeye waa 6 company oo 6 magaalo muxuu ahaa ka sameyn doona waqti ka hirgelin doona mashruuca magaalada waxa la yiraahdaa Baran Electricity Company oo magaalada Badana ayaa kamid waa kow. kamaniga ku xiga waa Bedr Electricity Company oo magaalada Sheekh ka hirgelinaya mashruucaas. kamaniga saddexaad waxa weeye Som Power oo isaguna ka hirgelinaya mashruuca magaalada Gabiley. kamaniga ku xiga waa shirkadda la Heko oo mashruucan ka hirgelinaysa magaalada Burco. shanaad waxa weeye Telesom Company oo ka hirgelinaysa magaalada la yiraahdo Buuhoodle. lixaadna waxa weeye shirkadda la yiraahdo Alog Electricity Company oo ka hirgelinaysa mashruucan magaalada Boorame. wasiirka oo marka la sharaxaya faa'iidada mashruucan ugu jira bulshada Soomaaliland waxa uu yidhi mashruucani waxa ay dawladda Ingiriisku ka bixinaysaa almost $3 milyan oo dollar. $3 milyan oo dollar ayuu ku kacaya qiimo lacagta laga ka imanaysa Ingiriiska dawladda Ingiriiska ka imanaysa DFID. waxa uu soo kordhinayaa 3,318 kilowatt oo cusub oo power ayaa la curinaya oo ka dhalanaya mashruucan 6 meelood aan idin soo sheegay ama 3.3 megawatt ama 3,318 kilowatt. waxa la filayaa mashruucaasi markuu dhamaado in uu insha Allah soo kordhin doono 10,000 oo macaamiil cusub oo markii hore awoodi kari jirin leerka qiimihiisu sidoo uu sareeyay awoodi kari jirin. runtii shardi baa lagu xiray sharaa'igan ka qayb galay tartanka inaanu lacag la iskaga daadin oo Ingiriisku lacag iskaga daadin oo moogtay ku hawlgal maaha iyaguna way lacagtooda isticmaalaan. marka waxa weeye jointly baa loo sameeyay wada jira ayaa maalgashigu u yimi 3 milyan oo dhow shirkadda Ingiriiska ayaa bixiyay DFID baa bixisay sharaa'iguna way kabeen oo ka bala doonayay marka inta ku sii adiguna inta ku darweeyay. marka sharaa'igu laftoodu waxay ku dareen mashruucan milyan iyo badh. Alex Way oo ah madaxa barnaamijyada ee hay'adda DFID ee kharashka la soo mariyay oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani wax weyn ka tari doono dhinaca horumarinta tamarta cusboonata. waxaan u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay
arrintan hirgelinteeda iyo 6 shirkadood ay ku guuleystay. Maxamuud Liibaan oo ah gudoomiyaha shirkadda Hero ee korontada ee magaalada Burco oo u hadlayay 6 shirkadood ayaa isna u mahad celiyay dawladda Ingiriiska iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaanu sheegay in ay faa'iido weyn u soo kordhin doono shirkadaha tamarta bixiya.